haweenweynaha Yunis Jibriil ee gobolka Gabiley ayaa shir ay ku qabteen hoolka shirarka ee Hotel Book kaga dhawaaqay urur ay ugu magac dareen aqbal iyagoo sheegay in aan ururkani ahayn mid dabada ku haya siyaasadda iyo arrimaha ay dadka qaar dareenka ka muujiyeen balse uu yahay mid ay kaga tashanayaan isla markaana ay ku lafagurayaan sida ay isku xidhnaan lahaayeen haweenka beeshoodu waxaana iyagoo arrimahaasi ka hadlay hadaladoodii kamid ahaa aad u salaamaya haweenweynaha marwooyinka sharafta leh Yunis Jibriil ee soo ajiibay baaqi aan u baaqnay ee nidhi iskugu yimaada shir wada tashi iyo is arag aayaha Yunis Jibriil uu kalifeen iskugu yeerno oo inuu halkan ku kulanno oo inuu is aragno inuu wada tashano waa baahi jirta oo ka dhex jirta reerkeena Yunis Jibriil markaan aragnay duruufo badan oo looga maarmi karin mar raba in la isarko oo dhinacyo badan taabanaya oo mustaqbalkeena lafteena taabanaya oo mustaqbalka awlaadeena taabanaya oo kuwa ka sii dambeeya taabanaya waxa daruuri noqotay in isku nimaadno oo in is aragno oo in wada tashano in badanna kulay waanu soo wadnay dumaro badan waanu isku keenay waxba la isiri waxba la isla meel dhigay inagu uma jeedno xisbi uma jeedno dawlad uma jeedno siyaasad laakiin waa danteena reernimo dadka baaxadda la baynu nahay aqoonyahanka inta tiradoodu leeyahay maalin walba jaamacadaha ka qalin jabiyay reerkan ka dhashay marka waa inaynu muuqano in bulshadaynu la noolnahay ka dhex muuqano iyaga xuquuqdooda aanayna ku xadgudbayn inaguna ogolaan mayna mar raba in xuquuqdeena lagu xadgudbo caawa hawlo yar bay iska wada jiray cidii oogiyada ogeyd laakiin waxaan leenahay anagu cidna xuquuqdooda kuma xadgudbayno wixii anagu xuquuq aasaasi ah leenahayna cidna u daba fadhiisan mayno waxaan ku helaynaa farciidadooda waxaan anagu leenahay dan kastoo reerku leeyahay danta shakhsiga iyada ka horeynaysa dan kastoo reerku leeyahay ta shakhsiga iyada laga horeysiinaya marka ta reerna la qabto ba ta shakhsiga la qaban doona haddaba waxaan doonaynaa intii la ogeeyna waan ogeeyeen intii aan ogeeyna ee ku nidhi halkaas aynu isku arki doonaa oo aynu wax socon doonaa inaad sidaa u ogaataan oo wixii fikir iyo talaad haysan intaad ururisaan aad soo gudbisaan oo gudiyadii aad magacoonay aad u soo dhiibtaan haddii ilaahay shay uu noqdo mid wax ka soo baxaan oo caruurta ay idin la hadashay ama inamada dhalinyarta idin la hadlay ee doonaya hooyooyin ka horeeya ee doonaya gabdho fiican oo ay ku tiirsadaan ee doonaya inay inamada qeyrkood hankooda iyo la qaybsadaan wixii ay dadka magaalada jooga ama ay nolol nool ay heli karaan hooyo waliba waa in ay ku fikirto ilmaheedu halka ka horeysa waxa weeye inagu cidna ma durayno cidna ma fogeynayno qof inoo dhaxay iyo qof aynu jecelahay iyo qof inala joogaba waxa kaliya tii halkan laga hadlaya isagoo qof la durayn waxa weeyaan xageeynu u soconaa halkeeynu hiigsanaynaa waxa weeyaan wax qabada qabsigeenu waa sideynu iskugu tiirsanaanaa ma in maanta reer la soo ururinayo horeynu u dhisnayn horeynu u wanaagsanayn laakiin waxa la inaga rabaa uun isku taageersigeena iyo isku xidhnaashaheena inaynu sii kordhino dadka waayeelka ee maanta halkan joogana waxa la idinka fadhiyaa qof kasta oo waayeelo halkan jooga shirku inta aanu u ducaysaan duca badan baynu u baahanahay duca badan waa ururkii ugu khayr badan waxaan kaloo salaamayaa hablaheena quruxda badan ee soo agaasimay ururkan ee ka soo shaqeeya in badan iyagana hool iyo hiilba waa la garab joognaa hool iyo hiilba daylaadii nimaad ka timaadeen xilligaa waxaad u joogtaan waa inaad eegtaan oo isbarano oon hawlaheena iyo danteena aynu ka wada hadalno birweeyaan oo islaam ku badbaadiya waan u baranaya rabo oo baaska naga xijaa وعبد الله داير warbaahinta madaxa banaan magaalada Gabiley